أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaynu sii wadi doonaa tafsiirkeeni qur-aanka kariimka ah. maantana darsigeenu wuxuu ka bilaabmayaa maqrada shanaad ee suuratu lbaqara ama aayadda 57aad ee suuratu lbaqara, wuxuuna ku joogsan doonaa maqrada dhammaadkeeda aayadda 86aad ee suuratu lbaqara. sidii caadadaynoo ahayd maqrada oo dhan ayaynu dul mari doonaa, dabadeedna tafsiirka dheer ayaynu geli doonaa. yaquulu allahu subxaanahu watacaala afatatmacuuna, ma waxaad hunguraynaysaan mu'miniinay an yu'minuu inay rumeeyaan nimankan ahli kitaabka yahuudiihi lakum idinka idaydin ajiibaan, yacni an yu'minuu inay rumeeyaan alleh lakum iyagoo idinka idin ajiibaya. walxaal qad kaana aw ahaa fariiqun koox ka mida minhum iyaga yasmacuuna kuwii maqla kalaam allaahi alle hadalkiisa ayay maqleen, huma intaa kadibna yuxarifuunahu way doorinayaan min bacdi maa caqaluuhu markay kaseen ka bacdigeed. walxaal wahum yaclamuuna iyagoo og waxa ay sheegayaani ee doorintaasi inay been tahay. wa idaa laquu marka ay la kulmaanna, aayaddanna waxay ka waramaysaa munaafiqiinta yahuudda. waxaa jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kooxo ka mida yahuudda oo munaafiqiin ah oo mu'miniinta iyo rasuulka mu'miniinta markaas ku yidhaahdo, rasuulkiinu waxa uu sheegayaa waa sax, waana rumaysannahay kitaabkii aa noo sheegay, laakiin waa munaafiqiine arrintaasi been bay ka tahay. alle wuxuu leeyahy waidaa laquu marka ay la kulmaan alladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helay munaafiqiinta yahuudda hee qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay, oo rasuulku wuxuu la yimidda waan rumaynay. waidaa khalaa markuu u gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kalena qaaluu waxay yidhaahdaan, kuwii munaafiqiinta yahuudda mah kuwii kale yahuudda ah ayaa waxay ku yidhaahdaan munaafiqiinta yahuudda, atuxadithuunahum ma waxaad uga waramaysaan mu'miniinta maxamed iyo asxaabtiisa bimaa fataxa allahu wuxuu ilaahay idiin furay calaykum korkiina, liyuxaajuukum si ay idinku xujeeyaan bihi arrinkaa cinda rabbikum rabbigiina agtiisa. afalaa tacqiluuna miyaydan garaad lahayn? awalaa yaclamuuna miyaanay ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan ay qarsanayaan, wamaa yaclinuuna iyo wax ay caddaysanayaan ay muujisanayaan. wa minhum waxaa ka mida nimanka yahuudda ummiyuuna kuwa ummiyiin ah, waxna aan qorin waxna aan akhriyin, laa yaclamuuna aan ogeyn alkitaaba kitaabka aanan garanaynin, kitaabkaasi kitaabka towraadood weeyaan, ilaa amaaniya waxyaabo ay la tahay mooyaane, yacni waxyaabo ay la tahay oo didiilay waxay la tahay mooyaane waxba aan ka ogeyn. wa inhum ay wamaa hum iyaguna maaha ilaa yadunuuna kuwii malaynaya maahine. aayaddan tafaasiir ayaa ku sugan, laakiin haddaan mid kamida ku koobsanno, ibnu cuthaymiin wuxuu rajaxay in ay macnaheedu tahay waa qofka tilaawada keliya haatay uun yaqaana, hadalkaasna salaf buu lahaa oo waa looga horeeyey. marka qofku hadduu qur-aanka akhriskiisa uun yaqaano, cilmigiisu ma dhammaystirna, waa inuu macnihiisa barto awna kuna dhaqmo. markaa alle wuxuu leeyahay faweylun hoog baa u ahaaday liladiina kuwa yaktubuuna qora alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda ku qora, huma intaa kadibna yaquuluuna dhaha haadaa kani min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka yimid, waa kitaab ilaahay uu soo dejiyey
liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi kitaabka ay gacantiisa ku qoreen thamanan lacag qaliilan yar. faweylun hoog baa u ahaaday lahum kuwa mimaa katabat aydiihim waxay gacmahoodu qoreen, waweylun hoog baana u ahaaday lahum iyaga mimaa yaksibuuna waxa ay shaqaysanayaan oo kitaabka lacagta ay ku iibsanayaan iyo maalka iyo waxa ay ka daba helayaan iyo wejiga ka daba helayaan kaana hoog baa ugu ahaaday buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yahuuddu lan tamassana na taabsan mayso oo na gaadhi mayso annaaru naartu ilaa ayaaman maalmo maahine macduudatan la tiriyey. qul waxaad ku tidhaa attakhadtum ma waxaad samaysateen qul waxaad ku tidhaa nebi allow attakhadtum ma waxaad samaysateen in attakhadtum ma waxaad samaysteen cinda allaahi alla agtiisa cahdan ballan falan yukhlifa allaahu oo ilaahay ma baajinayo cahdahu ballankiisa. amise taquuluuna waxaad leedihiin cala allaahi alla korkiisa maa laa taclamuuna waxaydan garanayn. balaa haa way idin gaadhi oo way idin taabsan naartu. af carabiga kelmadda haa dhowr kelimado ay ku timaadaa. balaa ayaa ka mida, nacam ayaa ka mida, ajal ayaa ka mida, ayaa ka mida. insha allahu tacaala mid walbana masha ay nagu soo marto ayaynu ku sharxi doonaa, laakiin maadaama balaa ay halkayna soo martay tafsiirka gaaban markaa waxaan iyadan ku sharxaynaa. balaa nuxaadu waxay tidhaahdaa ama naxwiyiintu waa jawaab linafyi mutaqadim, waxay jawaab u tahay nafyi markaa ka horeeyey. macdaheeduna waxa weeyaan haa weeyaan alaysa allaahu oo kale marka la yidhaahdo. afkeena norwejigaana waxa u dhiganta kelmadda yu haddii la wiraa kab soo qaad tusaale ahaan sidaa miyaanad samayneyn. hee tarikadu ali oo kale yu baad markaa odhanaysaa. alla wuxuu leeyahay balaa haa way idin gaadhi oo way idin taabsani naartu man ruuxii kasaba sameeyey ama kasbaday sayi'atan xumaan gaalnimo ah, waa xaatad ay koobto bihi isaga khatii'atuhu gafkiisu, fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan, hum iyagu fiiha dhexdeeda khaaliduuna ayay ku waarayaan. waladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helay wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey, ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeyaan, hum iyagu fiiha jannada dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan. wadkur xus nebi maxamedow id waqti akhadnaa aan qabanay oon ka qaadnay miithaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil miithaaqii ballankii dhaarta lagu adkeeyey. oo ballankaasi muxuu ahaa laa tacbuduuna ay laa tacbudu ha caabudina ila allaha alla maahine, wabilwaalidayni ixsaanan waalidkana u samafala, wadil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ana u samafala, walyataama agoontana u samafala, walmasaakiina masaakiintana u samafala. waquuluu waxaad ku tidhaahdaan linnaasi dadka oo dhanna xusnaa hadal wanaagsan, waaqiimuu toosiya asalaata salaada arkaanteeda waajibaadkeeda sunankeeda shuruudeeda u toosiya, wa aatuu bixiya azakaata zakada, thumma intaa kadibna yacni ballankaa laydin saaray kamidaan soo bixina tawallaytum waad ka jeesateen ilaa qaliilan in yar maahine ama in yar mooyaane minkum oo idinka idinka mida, walxaal antum idinkuna mucriduuna aad jeesanaysaan. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waid akhadnaa wadkur xusnay maxamedow id waqti akhadnaa aan qaadnay ama aan ka qaadnay miithaaq cafwan wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiina aan idinka qaadnay. ballankaa aan reer bani israiil idinka qaadina maxaa buu leeyahay wuxuu ahaa laa tasfikuuna. halkan siyaaqu waa daadin maysaan weeyaan, laakiin ujeedadu waxa weeyaan laa tasfikuuna dhiigiina ha daadinina, laa tasfikuuna dimaa'akum dhiigiina ha daadinina, walaa tukhrijuu anfusakum nafihiinana ha saarina, min diyaarikum daarihiina ha ka saarina, thumma intaa kadibna aqrartum ood qirteen, ood ogolaateen, wa antum tashhaduuna
sidaasina idinkoo og ama walxaal antum tashhaduuna aad markatihiin wad sidaa ogtihiin. wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qaadna miithaaqakum ballankiinii laa tasfikuuna hadaadinina dimaa'akum dhiigiina walaa tukhrijuu ha ka saarina anfusakum nafihiina min diyaarikum guryihiina uma intaa kadibna aqrartum aad qirateen walxaal antum idinkuna tashhaduuna aad maraka tihiin ama sidaasi aad ogtihiin. uma intaa kadibna antum idinku haaulaa'i kuwaasow taqtuluuna yacni yaa haaulaa'i kuwaasow taqtuluuna waxaad dilaysaan anfusakum nafihiina watukhrijuuna waxaad ka saaraysaan fariiqan koox ama fariiqan qeyb minkum idinka mida min diyaarihim guryahooda tadaaharuuna idinkoo isugu kaashanaya calayhim dushooda bilithmi dembi waalcudwaani iyo colnimo. wa in ya'tuukum haddii au idin yimaado kuwa aad la dagaalanteen haddii au idin yimaado usaara au idinka yimaado hadday idin yimaadiin markaas iyagoo la qafaashay tufaaduuhum waad furanaysaan. wa huwa halkan sha'niga waxa la damiiru sha'ni walamri sha'nigii arrinku wuxuu yahay markaa damiir sha'ni walamrigana hadalka ka dambeeya markaa lagu xidhaa. wa huwa sha'niga iyo arrinkuna inuu yahay muxaramun arrinkaasi arrin xaaraan ah calaykum korkiina ikhraajuhum inaad saartaan. alla wuxuu leeyahay afatu'minuuna ma waxaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan kitaabka qaarkii watakfuruuna ma waxaad ka kufriyaysaan bibacdin qaarka kale. afatu'minuuna ma waxaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qaarkii watakfuruuna waxaad ka gaaloobaysaan miyaad ka gaaloobaysaan bibacdin qaarka kale. alla wuxuu leeyahay famaa jazaau man nin abaalkiisu muxuu yahay yafcalu sameeya daalika arrinka minkum oo idinka mid a ilaa khizyun dulli maahina ama dulli mooyaane filxayaati dunyaa noloshan adduunyada ah ee liidata ou ku noolaado dulli. wa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamana yuradduuna waxaa loo celiyaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabkiisa ugu xun ee cadaabkiisa ugu adag. wama allaahu allana maaha bigaafilin ku ka warla ama wama allaahu allana maaha bigaafilin allana kama warla'a cama tacmaluuna waxaad samaynaysaan ama wama allaahu allana maaha bigaafilin mid ka warla cama tacmaluuna waxaad samaynaysaan. ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan ishtarow soo iibsaday alxayaata addunyaa noloshan adduunyada dhow ku soo iibsaday bilaakhirati aakhira yacni waxay soo iibsadeen nolosha adduunya maxay iibiyeen aakhira ay iibiyeen aakhira waxay kusoo bedesheen. ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan ishtarow soo iibsaday alxayaati addunyaa noloshan adduunya ee dhan soo iibsada maxay kusoo iibsadeen bilaakhirati aakhira yacni aakhira ayay adduunyada ka doorbideen. falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabka walaa hum yunsaruuna kuwa loo gargaarayna maaha. aayaddan hore ee ah yacni reer bani israa'iil 4 shay ayaa la faray yacni inayna oo ballanka ilaah ka qaaday maxay ahayd inayna waxa weeyaan dhiigooda daadinin inayna nafahooga dilin inayna markaas yacni guryahana markaas ayna iska saarin iyo in haddii dhexdooda markaa ay 4 shay iyo inta afraadna waxa weeyaan in markaa haddii au qof la qafaasho ay furtaan 3 kale intay iskaga tageen oo iska disdileen dhexdoodii guryahoodii iska saareen dhiigoodii ay daadiyeen ayay laakiin tan kale ayay la hadheen. ilaahina subxaana watacaala wuxuu leeyahay ballanka la galo qofka qeyb rumeeya qeybna ka tagay cadaabkiisa waa sida walaqad aataynaa wallaahi ama alla wuxuu leeyahay anaa isku dhaaranayee aataynaa waxaan siinay muusa nabiyullaahi muusa alkitaaba kitaabkii towraadeed waqafaynaa waxaan raacinay oon israacraacinay oon iska dabageynay
min bacdihi isaga gadaashii birusul rusushii ka dambeysay oo iyaga kutub laguma soo dejinin ee kitaabkii muuse ayay markaa kutubtooda ahayd. wa aataynaa waxaa siina buu leeyahay alle ciisa bna maryama ciise ina maryam ah nabiyullaahi ciisa albayinaati xujooyinkii cadcadda ayaan siinay. oo alla subxaanahu watacaala xujooyin cadcad ayuu siiyey oo xagga caafimaadka ah. qofka indhaha la gacantiisa intuu mariyo indhihiisa ayuu araggii usoo noqonayay, iyo wixii cudurre kale markaas la mida. qur-aanka inoo soo socday aan inoo sharxi doona insha allahu tacaala. tafsiirka dheer ayaanu ku arki doonaa sharaxa dheer. wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinay biruuxi lqudusi jibriil ayaanu ku xoojinay. alle wuxuu leeyahay afa kullamaa jaa'akum kolkuu idin yimaadaba rasuulun rasuul bimaa laa tahwa aw idinla yimaado waxayna jeclayn anfusukum naftiinu istakbartum miyaad kibraysaan fa fariiqan qaybo kadabtum waad beeninaysaan wa fariiqan qaybana taqtuluuna waad dilaysaan. oo sidii nebiyallaahi yaxya iyo zakariyaba u dileen reer bani israa'iil ambiyo badan ayay dileen. rasuulkeenana sala allahu calayhi wasalam way isku dayeen mar ay sumeeyaan iyo mar ay mid ku yidhaahdaan dhagax kusoo tuur. wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa quluubtayadu gulfun waa mid xidhan oo daboolan. laba qowl ayaa ugu caansan aqwaasha culammada. mid waa in lagu macneeyo waa tii xidhan oo daboolan, iyo ta kale oo ah cilmi ayaa ka buuxo oo awciyatun cilmiga galalkiisa ayaa nahay, awciyatun lilcilmi, oo meel au hadalkan ka gala ma jiro. alle wuxuu le waqaaluu waxay yidhahdaan quluubunaa quluubteedu gulfun waa tii xidhan oo daboolan, ama waa mid cilmiga galalkiisa ah ayaanu nahay. alle wuxuu leeyahay bal iskaba dhaaf inay noqdaan sidaas, lacanahumullahu ilaahay baa nacdalay bikufrihim ay bisababi kufrihim kufrigooda dartii. faqaliilan maa waxya in yarbay yuuminuuna rumaynayaan. alle wuxuu leeyahy walamaa jaa'ahum markii au u yimiday kitaabun kitaab min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka yimiday, musadiqun kaasoo rumaynaya limaa macahum waxa agtooda ah oo kitaabkii towroodaad ah. halkaa waxaan ka fahnaynaa way ka jeesteen. wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu hadda ka horna yastaftixuuna kuwii ku gargaar dalba cala aladiina kuwii looga gargaaro kafaruu gaaloobay. falamaa markuu jaa'ahum oo u yimiday maa carafuu waxay garanayeen, yani rasuulkii ay garanayeen, tilmaamihiisa ay garanayeen, kafaruu way ku gaaloobeen bihi isaga. falacnatullaahi ilaahay nacdashiisu cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda ahaato. yani naxariista ilaahay oo laga fogeeyay kaafiriinta korkooda ahaato. alla wuxuu leeyahay bi'sa mashtarow bihi, bi'samaa wuxuu xumaa ishtarow bihi ay ku iibsadeen anfusahum nafahooda. yacni qofku waxa ugu qaalisan waa naftiisa weeyaan. hadduu naftiisa gaalnimo ku iibsado waa shay xun weeyaan. bi'samaa wuxuu xumaa ishtarow bihi ay ku iibsadeen anfusahum nafahooda, an yakfuruu inay ka gaaloobaan bay ku iibsadeen nafahooda bimaa anzala allaahu ilaahay wixii au soo dejiyey, bagyan xasad dartii, an yunazila inuu ku soo dejiye allaahu alle min fadlihi fadligiisa calaa man yashaau ciddii au doono min cibaadihi addoomihiisa ka mid a. fabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin cadho calaa qadabin cadho kala saaran. walilkaafiriina kuwa gaaladiina cadaabun cadaab baa u sugnaada u ahaaday muhiinun oo waxduleeya.
waidaa waqtiga qiila lahum lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu ilaahay waxa uu soo dejiyey, qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waxaan rumaynaynaa bimaa unzila calaynaa wixii annaga lanagu soo dejiyey. waidaa waqtiga qiila lahum lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu ilaahay kitaabka uu soo dejiyey ama ilaahay waxa uu soo dejiyey, qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waxaan rumaynaynaa bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaynaa korkayaga, wayakfuruuna way ka gaaloobayaan, way ka kufriyayaan bimaa wara'ahu wixii ka hadhay, wa huwa alxaqu shaygaa ka hadhay ee ilaahay soo dejiyay gu diidan yihiina waa mid xaqa weeyaan, musadiqun u rumaynaya ama rumaynaya limaa macahum kii agtooda ahaa. qul waxaad ku tiraa buri ilaahay nebi allow waxaad ku tiraahdaa, falima maxaybaa taqtuluuna aad u dilaysaan ambiyaa allahi ilaahay ambiyadiisa min qablu imika ka hor, in kuntum mu'miniina haddaa mu'miniin tihiin. qatl ambiyaa oo anaga hore usoo sheegnay, qofkii raba inuu ka mudaalaceeyo basaa'ir dawi tamyiiz lifayruus abadi, kitaabkaas ayaa aada u sharxay markaa tafsiirkaas. baarakum allah fiikum.